saacadu waa 6 iyo barkii subaxnimo. Shaqada aroornimo ayaa ka bilaamaysa mid ka mid ah xabsiyada sumcad ahaan ugu xun dalka Mexico, xabsigan oo dhaca bartamaha magaalada Tijuana. waxaa soo gaaray afaafka xabsiga taliya Mario Antonio Meza Flores, waana sarkaalka mas'uulka ka ah amniga gudaha xabsiga, waana nin markasta naftiisu ku sugan tahay halis. inkastoo guud ahaan wadanka Mexico ay ka jiraan boolis adag iyo cadaalad, haddana magaalada Tijuana waxaa afeeyay oo ka taliya kooxda daroogada ka ganacsata. hadday mar wajigaaga calaamadsadaan ma sii noolaan doontid waqti dheer sida dad badan ku dhacday. nidaamka amniga lagu sugo subaxii iyadoo la eegin cidda tahay waardiye ama sarkaal mas'uul ah. qof walba waxa ku waajibay inuu maro baaritaano dhowr ah sida kabiraha askarta, midka iskaanka ah iyo baaritaanka duleed ee jirka. ma jirto cid darajo iyo waji ku dhaafaysa. hubka, sigaarka iyo wax kastoo maanka dooriya waa ka mamnuuc xabsigan La Mesa. 7 subaxnimo markii gaadha askartu waxay u diyaar garowdaa shaqo. shaqadooduna waa inay ilaaliyaan oo xakameeyaan maxaabiis qiyaastii 3,000. waxaa sidoo kale ka mid ah shaqadooda ilaalinta guud ahaan ammaanka xabsiga iyo dagaalada dhexmara maxaabiista. qayb ay ciidamada u baadhaan qolalka ay maxaabiistu ku jiraan, waxaanay subax kasta qaadaan olole weyn. waxaanu si guud u baadhaynaa hub iyo waxyaalo kale sida maandooriyaal iyo daroogo. waxa ugu muhiimsan intaan ololaha la bilaabin waa kulanka subaxda hore. halkan waxaa subaxda hore lagu sii xaadiriyaa askarta, waxaana lagu sii siiyaa katiinado, budhadh iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa. iminka waxay u socdaan qolalka, waxaanay shaqada baadhitaanka kasoo bilaabayaan koonayaasha xabsiga. xabsigan La Mesa waxaa loo kala dejiyaa maxaabiista iyadoo loo eegayo siday u kala dembi wen yihiin, siday u kala halis badan yihiin, da'dooda iyo jinsigooda. dhismaha nambarka 1 waxaa ku xidhan mukhalisiinta daroogada tahriibiya iyo tuugta geysata xatooyinka waaweyn ee rabshadaha wata. dhismaha 2 waxaa ku xidhan gacan ku dhiglayaasha khatartoodu yar tahay. dhismaha 3 iyo 4 waxaa ku jira maxaabiista dembiyadoodu yar yihiin, shaqaalaha xabsiga u shaqeeya iyo maxaabiista waayeelka ah. dhismaha 5 waxaa ku xidhan dambiilayaasha kufsiga geystay iyo maxaabiista qabta xanuunka AIDS-ka. aagan dhexe dhammaantood way wadaagaan. dhismaha 6 waa mid gebi ahaanba ka durugsan xabsiga intiisa kale, waxaana ku xidhan qoorweynta ururka kaarteela daroogada ka ganacsada iyo gacan ku dhiglayaasha dhiigga dadka banaystay. ugu dambeyn waxaa koonahan ku yaala dhismo kala xidhan oo u gaara haweenka. waxa uu xil saaran oo ku qasban inay xabsigan La Mesa cuntada u kariyaan 100 maxbuus oo la soo xulay. maxaabiistaas waa kuwa ay khatartoodu hooseyso ee dambiyada yaryar lagu soo xidhay, sidoo kale ku xukuman xukuumada muddada gaabana. maxaabiistan cuntada kariya waxaa loo sameeyaa asxaan badan, waxaa loo ogol yahay inay waqti badan ku qaataan barxadda xabsiga. waxaa sidoo kale loo ogol yahay in la soo booqdo. xitaa waxaa loo sheegay maxaabiista in shaqada ay shaqaynayaan ka dhimayso muddadii lagu xukumay. waxaa loo ogolaaday in maalin xabsiga laga jarayo markastay shaqeeyaan 2 cisho oo isku xigta. baadhitaan aad u adag ayaa la sameeyaa marka cuntada la diyaarinayo. maalin kasta waardiyayaashu waxay ka baadhaan cuntada iyo shaqaalahaba waxyaalaha la tahriibiyo. maxaabiista iyo shaqaaluhu waxay si fiican u diyaariyaan 3 jeer maalintii 3,000 oo bileed oo cunto ah, halkay sidoo kale qol kasta dhigaan jirkaan biyo ah oo 20 litir ah. ma jirto meel gaar ah oo cuntada lagu cuno. raashinkana maxaabiista kariyay ayaa si toos ah meeshooda ugu geeya maxaabiista xidhan. tanina waxay ku hortagaysaa xiriirkii dhexmari lahaa ilaalada iyo maxaabiista. ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in cuntada bartooda lagu geeyana waa in qolalka lagu hayo inta suurtagalka ah ee la awoodo, si aanay askarta isku baran qalalaasana meesha u iman. maxaabiista xabsigan La Mesa ku xidhan waxaa si adag looga jaray hadalkii iyo nooc kasta oo xidhiidha. tanina waa dhibaato si gaar ah u wajahda maxaabiista Mareykanka ah ee ku jirta dhismaha 1 ee xabsiga. xitaa haddii ay ku guuleystaan inay foolka kula kulmaan waardiyayaasha, ma yaqaanin waxay kula hadlaan sababtoo ah ma jiro qof xabsigan ku jira oo ku hadla afka Ingiriisiga. xadgudubka halkan ka jira aad ayuu xun yahay, duruufta noloshuna aad ay u adag tahay. anigu waxaan ahay dagaalyahan hore oo Mareykan ah, waxaan ka tirsanaa ciidamada militariga badda Mareykanka. waxaan soo galay dagaalkii Ciraaq, waxaanan ku helay bilado badan. halkaa waxaan ka ahay geesi, halkana waxaan ka ahay dambiile. xitaa layma ogola inaan taleefon ka wacdo reerkaygii si ay u ogaadaan halkan joogo iyo xaalkan ku jiro. haddii la eego waxyaalaha xun ay ka cabanayaan keliya maaha qolkan caafimaad darrada ah ay ku jiraan, balse waa inaan loo ogolayn inay daaradda xabsiga ku cadceedsadaan. waxaan keliya helnaa 2 saacadood oo cadceed ah wiigga oo dhan.
marmarka qaar hadduu midkaaya sameeyo wax xun wuxuu galaaftaa inaanu dibadda ku cadceedsanno xilliba waasi marmarka qaar waxaan helnaa saacad cadceedsiya marna waxaana loo ogolaadaa nuso saac xabsigan la meesay la jimicsiyo hawo nadiif ah xaaraan ayay ka tahay dhammaan maxaabiistuna way ka siman yihiin arrintan iyadoo loo eegin kiiska lagu soo xidhay haba ahaado mid baabuur xaday mid daroogada ka ganacsada mid carruur ku xadgudbay iyo mid dilaa ahba dhammaantood waxay abaal ku qabaan inay wax yar oo cadceeda maalintii ka helaan daldaloolka qololka ay ku xidhan yihiin waxay ku qaataan muddada xukunkooda oo dhan qololkooda tani waxay ka dhigan tahay in loo ogol yahay 2 mitir oo isku wareega maxbuus kasta qaarkood dhowr sano oo kaliya ayay noloshan ku jiraan kuwo kalena shaki la'aan inta noloshooda ka hadhay waxay ku xidhan yihiin xabsi aan la isku naxariisan oo xeerar bira leh xeerarkaas waxa dejiyay nin kaliya waa qofka kaliya ee ilaa 2014 lahaa kelmadda koowaad iyo kelmadda u dambeysay ee lagaga hadlayo xabsigan la meesaa waa taliyaha guud ee xabsiga Caser Daniel Rimares Acevedo mudana taliye haddaan shaqada bilaabay waxaa jira hawlo yaryar oo qabyaa laakiin wax kasta waa caadi waa hagaag way wanaagsan tahay inaad ii sheegtay maalin kasta taliyaha guud ee xabsigu wuxuu hubiyaa in xabsigiisu ammaan ahaan sugan yahay waxaanu isku dayaa inuu u xaliyo dhibaatooyinka jira sida ugu dhaqsaha badan intaan uu soo wareegin La Mesa waxa uu taliye sare oo xabsi ka soo noqday 5 xabsi oo Mexico ku yaala imikana waa kan ka shaqeynaya xabsigan ku yaala bartamaha Tijuana magaaladan oo ah magaalo ay maafiyada daroogadu isugu hirbadiriraan si ay uga taliyaan taliya Acevedo isagoo 100% aaminsan hogaaminta adag wuxuu hoos u daadajiyay maamulka xabsiga waxaanu markaa u maqan yahay talada la sii wareega saraakiisha kale sida taliya Mario Antonio haddana iyadoo sidaa tahay wax kastoo xabsigan ka dhaca taliya Acevedo wuu ka warhayaa subaxdii daakaraada hore kooxda ugu horeysay maxaabiista ayaa loo ogolaaday inay ka baxaan qololka waana daqiiqado ay dhammaan ilaaladu galaan feejignaan weyn si lama filaan haddii maxaabiistu iskugu dayaan inay ilaalada weeraraan ilaaladu waxay iska caabin u haystaan bureer iyo gaas waana hubka kaliya isku difaacayaan nidaamka subaxii hadiyo jeer waa isku mid inta u dhaxaysa maalmaha Isniinta iyo Khamiista waardiyayaashu ma sii wada daayaan maxaabiista balse waxay qufulka ka hor furaan qolal xadidan oo ku yaala dabaq gaara iyo dhismo gaara qolalka kuwa feejignaanta badan u baahanna way u soo laabtaan waxaana furaan marka ugu dambaysa kooxda xigta lama sii din karo ilaa dhammaan kooxda ka horeysa ka wada degaan jaranjarada sidaas aanay ilaaladu ku dareeriyaan maxaabiista iyagoo ammaanka gacanta ku haya dhanka maxaabiista inta badan waqtigan la sii diinaya waxay u tahay fursad qaaliya waana 2 saacadood ee kaliya ay la kulmaan iftiinka qoraxda isbuuca dhan halka dhinaca kale askarta xabsiga ay u tahay fursad ay ku tira koobaan maxaabiista waxaanay ku kala xareeyaan 3 daaradood oo kala duwan iyagoo uga dan leh inaan isbaran maalin kasta waxaa halkan loo soo saaraa 20 maxbuus hadafka uu ka leeyahay taliye ku xigeenka Mario Antonio waa inuu ku baraarujiyo maxaabiista inuu dabagal ku hayo qorshahooda iyo waxay qabtaan dhanka kale wuxuu uga dan leeyahay inuu ku ogaado wixii akhbaar ee xabsiga ku cusub waxaanu ilaalada xabsiga weydiiyaa su'aalo kala duwan inay maxaabiistani dambiilayaal yihiin iyo sida laga yeelayo inay gaangis kale ka samaysmeen gudaha xabsiga iyo haddii jiraan xag uu baaritaanka ka bilaabi doono qol kastoo ka mid ah dhismaha koobaad ee xabsiga La Mesa waxa ku jira 8 ilaa 10 dambiile waxay ku jiraan qol cabirkiisu yahay 4 talaabo oo dharara iyo 4 talaabo iyo barbalaca waxaana qolku dhex yaala waxay iyagu shakhsi ahaan u leeyihiin sida dhar tuwaalo iyo xasuuso ay ka haystaan noloshooda gaarka ah mid kamid ah maxaabiistu waa Abraham Chavez Orozco waa 22 jir waana mid kamid ah maxaabiista ugu da'da yar xabsiga La Mesa waxa laga soo qabtay isagoo jooga garoonka diyaaradaha oo tahriibinaya daroogo waxaana lagu xukumay 5 sano oo xabsiya imika waxa uu dhamaatay 3 kamid ah taasina waxay la micno tahay inay u hadheen 2 sano oo tagfi cunayso fikir iyo inuu qabaysto isagoo cawradiisu maxaabiista kale u muuqato
wax kasta waa nijaas tusaale ahaan isticmaalka suuliga oo kaliya waa yaqyaqsi maalmo dhexdaas waxaa lugtaygaga dhacay caab cuntada meeshu way xun tahay waana caafimaad darro jawiguna waa kulayl qoyska Abraham waxay ilaa waqti dheer isku dayeen inay ka wareejiyaan wiilkooda xabsigan taasi way u suurtoobi weyday ilaa imika laakiin wali rajo ayay qabaan maxaabiista kale badankoodu way wada rajo beeleen gaar ahaan maxaabiista Mareykanka ahi waxaana ka mid ah maxaabiista Taylor Elliot Howard waxaa Taylor qolkan kula xidhay 6 maxbuus oo Amerikaan ah waxaana looga soo soocay iyaga maxaabiista kale ajaanibta ah baqdin looga qabo in la cusuriyeeyo taliya Flores wuxuu markan kormeer ku tagay dhismaha lixaad ee qaswadayaasha ugu badan ay ku xareysan yihiin qaybtani waa qayb ka gooniya xabsiga intiisa kale waxaana ku xareysan dambiilayaasha ugu khatarta badan waxa dhismahan oo kaliya ku xidhan 450 maxbuus waxa lagu soo xidhayna wax farqiyo uma dhaxeeyo dhamaantoodna waxay madax sare iyo hogaamiyeyaal ka ahaayeen maafiyada daroogada ka ganacsata ee kaartel waxaana dhismahan gaarka ah lagu xidhay halistooda oo aad u badan sidee tihiin wax kasta way wacan Francisco Javier Villarreal waa mid ka mid ah dilaayada dhiig-yacabka ah ee xabsigan ku jira waxa lagu soo xidhay dilal isku xiga oo u geystay korneelo booliska kamid ah sidoo kale waxa jira kiisas kale oo ku socda dambiyaan geystay daraadood askartu si xun ayay la dhaqmeen way jir dileen oo way garaaceen biyo inay ugu baqtiyaan ay isku dayeen sidoo kale bacbalaastiga ayay madaxa igaga xidheen si uu naqasku igu dhago waxaan dilay saraakiil badan oo askarta ka mid ah waxaana ku jiray qaar darajo sare sita bishii shanaad 2011 Francisco kaliya muu dilin saraakiil badan oo askar ah balse wuxuu kaba sii daranta ka sii ganacsaday xubnahooda xilliga Francisco wuxuu ka tirsanaa oo u shaqayn jiray maafiyadii Sinaloa ee caanka ku ahayd ka ganacsiga daroogada sameynta lacagta falsada ah iyo ka ganacsiga xubnaha jirka bini'aadanka waxaana xilliga ahayd mid ka mid ah maafiyada ugu khatarsan Mexico waxa la soo qabtay 3 maalmood kadib markuu falka sameeyay bishii May isagoo la socda 3 nin oo iyaguna maafiyada ka mid ah waxay ciidamadu ka heleen gaari ay wateen 5 baastooladood 174 xabo oo rasaas ah 51 shandadood oo mukhadaraad ah iyo waxyaalo kale waxaan kula noolaa nolol heer sare ah faamilkayga carruurtayda iyo xaaskayga waxaanan haystay lacag aad u badan nolol raaxa ayaan iskaga jiray mana aqoon gaajadu waxa ay tahay xabsigan cunto kugu filan kuma siinayaan dhismaha nambarka 7 ee xabsigani waa qaybtii haweenka Dolores Sanchez waxay qaybtan haweenka ku xidhnayd ilaa 1999kii waxa lagu soo xidhay dil waxaanay ku xukuman tahay 34 sano oo xadhiga barigii hore waxaanu awoodaynaa intaanu albaabada xabsiga iska furno inaanu waxaanu doono samayno laakiin waayadan dambe nidaamkii xabsigu isbedelay daroogo khamri iyo musuqmaasuqba kama jiraan marka xabsiga sidaasi awgeed hadda ayuu ugu fiican yahay uguna amni badan yahay baryahan dambe Dolores waxay noqotay kalkaaliso caafimaad waxaana loo ogol yahay in daawooyinka insulinta iyo kortagan iyo jabka oo qorto maxaabiista bukaanka ah ee qaybta haweenka ku xidhan arintani waxay u tahay haba iska yaraatay xoriyad marka iyada la barbar dhigo haweenka kale ee maxaabiista ah laakiin si kastaba ha ahaatee Dolores waxay weli xasuusataa sidoo markii hore xabsigu ahaa iyo sidii uu noolaan jirtay goobihii lagu tuman jiray ee xabsiga ku dhex yaalay dilalkii iyo rabshadihii ka dhici jiray iyo ka ganacsiga mukhadaraadka xabsiga waxa la dhameystiray dhisidiisa sanadkii 1956 waxaana xukuumaddu dayactir ku sameysay 2002 halka qaab dhismeedkiisii wax laga bedelay ilaa imikana Dolores ma kala hubto xilliga hore sidoo xabsigu ahaa iyo imika sidoo yahay mid ka wanaagsan in lagu noolaado iyo mid ka adag maxaa yeelay labaduba guud ahaan waa xoriyad la'aan maalmaha xabsigu wax sharciya muunahayn may jirin cid kugu hamraysa inaanad cid ku xadgudbin inaanad khamri cabin iyo inaad daroogo isticmaalin may jirin cid ku odhanaysa jidhkaaga kama ganacsan kartid iyo waxyaabahaasi lamida maamulka xabsiga xilligaasi waxba may danin jirin kaliya waxay xil iska saari jireen inaanu qofna ka baxsanin xabsiga
waxaanu haysan jirnay laabtoomyo waxaa ku dhex taalay xabsiga maqaayad cunto casri ah dhammaanteena waxaanu haysanay lacag wacan iminka waxaasi ma jiraan xitaa lacag ayaa ugu yara noloma ogola waayahan dambe waxaa xabsiga La Mesa laga dhex sameeyay dukaamo waxaana lagu iibiyaa cuntooyinka fudud iyo cabitaanka gacan ku samayska ah waxaa sidoo kale lagu iibiyaa waxyaabaha laga maarmaanka ah sida warqadaha musqusha la dhigo waxyaabaha ay maxaabiistu gaarka ugu baahdaan iyo waxyaabo qaaliya sida maadooyinka lagu nafaqeeyo timaha dukaamada waxaa ka shaqeeya maxaabiista qaar sida gabadhan ugu magacaabo Giselle Fargos Guerrero waxaa lagu xukumay 7 sano sabab dambi oo ah inay hub sharci darro ah haysatay maxaabiistu waxay alaabaha ay iibsadaan lacagteeda ku bixiyaan qaab elektarooniga waxaana isticmaalaan farahooda waxa mamnuuc inay maxaabiistu gacanta lacagta ku qaataan xabsiga La Mesa waxaana lagu bixiyaa qaab hawo oo kala ah sida awgeed waxa alaabaha dukaanka iibsan kara qof lacag bangigiisa ugu jirto waxaanu iibin karnaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah lama ogolo macmacaan tusaale ahaan wax sidaa u sii wacan ma hayno kaliya waxyaalaha daruuriga ah ayaanu haynaa maxaabiista maalqabeennada ahi waxay inta badan aad u iibsadaan aadna u jecel yihiin cuntada darayga ah cuntada waxaa lagu soo diyaariyaa kitchen ku yaala qaybta ragga inta hawsha diyaarinta lagu jirana waxaa si adag loo kala ilaaliyaa ragga iyo dumarka ilaa heer aan loo ogolaan inuu wada hadal dhex maro shaqaalaha cuntada sameynayana iyagaa mas-uul ka ah oo lagala xisaabtamaya tayada iyo tirada cuntada waxaan hubinayaa inay tayadu wanaagsan tahay sidoo kale waxaan hubsanaynaa tirada saxda ah ee sandwichka haddii lacala la waayo cuntada badh ka mid a tusaale ahaan qofka sameynaya markaa sida imka gabadhan Giselle wuxuu la kulmayaa ciqaabo aad u xun ciqaabtu waxay noqonaysaa in la itakooro layguna xidho xabsi gaar ah waxay ku diidayaan inaad daaradda xabsiga u soo baxdo waxaanay kaa mamnuucayaan inaad reerkiina aad wacato maxaabiista Ameerikaanka ahi waxay ku dadaalaan inaanay meeshani qof ahaan bedelin gaar ahaan Taylor ma rabo inay meeshani qof ahaantayda bedesho sababtoo ah waa meel xun oo dadka joogaana nolosha ka dhaceen ma ii fahantay waxay ku rajo weyn tahay Giselle gabadhii lagu soo xidhay haysashada hubka sharci darrada ah in la sii daayo dhowr bilood kadib waxaana sii qorshaysanaysaa nolosheeda xabsiga kadib waxaan doonayaa inaan mar kale nolosha soo bilaabo waxaanan doonayaa inaan wax barto oo dhaktar noqdo waxaan doonayaa inaan hore u socdo oonan dib gadaal u eegin dhanka kale Dolores waxaa xukunkeeda ugu hadhay 15 sano waxaanay noqon doontaa 50 sano jir iyo dheeraad marka la sii daayo markan halkan ka baxo waxaan isleeyahay baro tiknoolajiyada adduunkii wax badan ayaa iska bedelay sidoo kale dadkii wuu isbedelay hubaal waxaan la kulmi doonaa dhammaan bulsho isbedeshay ninkan dhigii cabka ah ee Franciscana shaki baa kaga jiray inuu mar kale xorriyad heli doono dadkii aan la shaqayn jiray oo dhan waxaa la dilay 3 bilood kadib markii la sii daayay wuxuu ku dadaalay oo awooday taliya Asavedo sidii uu yimi inaanu mar kale xabsigani gacantiisa ka bixin xabsigan ku yaala bartamaha magaalada Tijuana muddo ka hor wuxuu ahaan jiray meel rabshad iyo qalalaase ka jirto wuxuu ahaan jiray xabsi ay dad badan nafahooda ku waayeen sababo rabshado waxaana u bedelay xabsi leh xeerar bir ah aad baan ugu faraxsanahay xabsigani wuxuu ahaan jiray rabshad socota wax lagu naanaysi jiray tuulada yar wuxuu lahaan jiray astaamaha tuulada oo dhan wuuna ka socnaa magaalada inteeda kale wax kasta oo xunna waa laga dhex samayn jiray xabsi shaqaynayana muu ahayn laakiin nasiib wanaag imika wax kasta annaga ayaa maamulna maxaabiista iyo annagubana ammaan ayaan haysanaa markii xabsigan loo yaqaanay tuulada yar waxa gacanta ku han jiray oo ka talin jiray maxaabiista xabsiga waxaana ka buuxay mukhadaraad ay nooc haweenka jirkooda ka ganacsada iyo sidoo kale waxa ka jirtay rabshado waxaanu taliya Asavedo sidoo xilka ula wareegay ka biyadiiday inaanu xabsigan La Mesa sida xun ku sii jirin maantana waa mid kamid ah xabsiyada ugu ilaalada adag adduunka